Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Shakur Laba Shan Laba. Waxa suuqeen dambeysay anigoo gabi ahaanba kaniya jabay shaqooyinkan laga shaqeeyaa ama delivery ha ahaadaan ama Uber ama Lefty. waxa gabi ahaanba shaqooyinkaas maalintii ugu dambeysay waxay ahayd maalin aad u xun gabi ahaanba waaniga wax shaqo waayay marka waxa weeye shaqooyin la isku haleyn karay maaha qofku waxa weeye inuu part time ahaan inaad uga shaqeysatid laakiin sidaada caadiga ah inuu qofku shaqo uu haysto oo full time ayaa u fiican waxa weeye anigu shaqo aanan haynin daraadeed ba waxa igu kaliftay inaan shaqooyinkan ka shaqeeyo shaqooyinkani wax la isku haleyn karay maaha waxay maantana waxaan doonayaa bal inaan ka shaqeeyno ama ilaa iyo inta shaqo fiican aan ka helayo shaqooyinkan waxay noqon doonaan kuwa kaliya ee aan ku tiirsanaan doono waxa weeye ku tiirsanaantu ma aha inaad wax yani inay ku kaafinayaan yani inaad wax kasta ka helisid waxa weeye maalina waad helaysaa maalina waa waayaysaa shaqooyinkan waa iska sidaas maalina suuqeegu fiicnaanaya maalina suuqu ma fiicnaanayo marka yani marka taladeedu waxa weeye tala ahaan Soomaaliyeed inahay talon bin meel walba la taaganay moogta aqoon kale ma lihin tala waxaan ahayn qof tala waxaan ahayn ku siinaya male marka waxa weeye taladeedu waxay tahay inaad shaqooyinkan oo kale aanad isku haleyn karin sababo badan daraadood suuqii shaqooyinkan oo la isku haleyn karin kow sidoo kale gaarigaaga xataa isku haleyn kartid ka xumaan kara haweenada shaqo haynin oo full time oo caadiya يعني shaqada kala dahadu tolo waa gaari qof uu si qaado way meesay ama Uber baad u raacay ama qof faareer ku siinay laakiinse shaqooyinkan haduu gaarigu ka xumaado hadii suuqii xumaado intaba mar walba maynis ba galaysaa marka experience badanna uma lihi shaqadan يعني khibrad far badan uma lihi in badan kuma dhex jiray shaqooyinkan soo hadii ay ku jiraan dad shaqooyinkan khibrad u leh ama in badan ka shaqeynayay fadlan fikirkaaga waa muhiim talooyinkaaga hoos nagula wadaag insha Allah soo maanta waxa weeyaan jawigu inaba caadi ma kamaradaydii si jeedin doonaa hadal badan yaan idinku wareerin let's go guys meel xaganaan hawlaha yar ka soo dhamaysanaya kadib markaas aan shaqooyinkeena sii wadana jawigu waa arkisin maanta jawigu inaba caadi ma cirku maxaa idinku markuu caadi yar leeyahay kelmadda yar muuqaal walba kama ilaawo soo waxa weeyaan dadka jawiyada u fiirsadaan ay jawigu markuu qurux badan yahay sheega oo ila jawigu maanta uu qurux badan yahay jawiga haduna fiicnay sheega marka anigu waxaan ay dadka badana markasta jawiga qiimeeya ama xaaladda jawiga cimiladu siday tahay qiimeeya waxaan ay dadka iska jecel cimilada wanaagsan jawiga dhulku markuu wanaagsan yahay muuqaaladuna ay qurux badan yihiin sida imika muuqaalkan oo kale dhulku cirku markuu sida kamaradu yara duubto caadna cirku uu yara leeyahay waxa weeye kamaradu muuqaalku aad buu qurux badnaanaya soo asxaabta marka sidaasan ku wadaynaa waxa weeye mawduuceena waxa weeye maanta shaqooyinkeena shaqooyin la isku haleyn kara aysan ahayn ruuxa xoog ku soo galay wadada muxuu shaqooyinkan inaan ahayn shaqooyin la isku haleyn karayo soo marka waa sii wadaynaa inaan duubno hadda waxaan ku sii jeedaa ama aan ku sii socdaa goobaha ganacsiga Soomaalida xagaas doonay inaan quraac yar ka soo cuno marka koobaad saacadu waxa weeye cabaarihii meelaha 12 iyo barkii duhurnimo ama subaxnimo waa iska soo markii 12 meelaha ay tahay soo wadadana wadada indii sheegay markasta waan duubaa oo wadada halbowlaha magaaladeeda dhaxmarta waxa weeye xaggan midig u gali doonaa wadadana midig u gali bidix u galina baan ka wadaa kadib sidaadan ugu dhacno wadadaas waxay noqon doontaa wadadayna geynaysaa goobaha ganacsiga Soomaalida so let's go guys wadaduna bis maanta way egtahay gaarigan U-turn buu sameynaya soo markaa waa inaad iska eegtid baabuurta markii U-turn sameynayaan waa inaad la socotid wadada way jaban tahay oh my god wadadaas qaybtaas aad bay u jabtay qofkan balaad u eeg
cadceed yar baa soo yara baxday jawigu sii qurux badnaanaya حقنا بدحو لابن doonaa wadada yar ee bartankii sii gelaynaa kadib xaggan in ku hakanaynaa ama istaagaynaa ilaa intuu falaadha bidixdu ee traffic light ku intuu ina fasaxayo ama uu ina siinayo green ama uu ina siinayo yellow flashing so haddii uu green ina siiyo falaadhu haddii ay green bidixayna siiso waxa weeye amar weeyaan yacni adiga xaq u leh laakiin haddii ay ku siiso flashing yellow haddii ay ku siiso machaala la chaala oo boodboodaya haddii ku siiso macnaheedu waxa weeyaan waa shaxaad laakiin haddii green kaasoo kale ku siiso hadda waa green waa amar waxa weeye inaga markaa xaq u lahada waxaad ku amran tahay inaad socotid okay goobii ganacsiga Soomaalida oo in soo gaadhnayba xaggan bidix waynu geli doonaa xaggan bidix u geli doonaa kadib restaurantigaas in ka soo iibsan doonaa quraac baan halkaa ka soo cuni doonaa then way isku soo noqon doonaa asxaabta xaggan istaagnaa okay kadib markaan isku soo noqon doonaa qofkii horeeyayna soo cadsaday so let's go guys qofkana soo qaadayna maanta cadceed baa soo yara baxaysa iftiin cadeeda laakiin qabow baa jira laakiin cimilada aad uma qabowba qabow jira laakiin sidii hore u dhaamaa let's go guys jam way yadhiri martigan ka soo qaadina qofkan
sidaan hore idinku sheegayba dadka meelaha grocery-ga laga soo qaado ma jecli waan idinku gaarigayga wasakheeyaan sidoo kale alaab bay ku rarayaan maanta dhan because waa dad soo adeeganayay moogti waan iska soo qaadanaa dib malaha waa orderkiinu ugu horreeyay na soo codsada maanta waxaan rajaynayaa inuu noo noqon doono bilowga maalin wanaagsan ayaan rajaynayaa let's go guys qaybtaasaan ka soo qaadana waa oday weeyaan Hello sir. Downtown magaalada soo dhex galnay. Soo xagan downtown kana soo yar dhex marnaya. Inta order soo qabsanayo. Waxa weey Uber-ku waan kaniyo jabayba. Magaaladan magaalo yar weey tuula. Soo markaa Uber-ku ma shaqeynayo. Dad badan oo la qaadaya ma jiraan. Kana mid ugu laaban doona downtown-kii soo dhex galnayba soo basaskani hor socdaana waxa weeye kuwa transportation-ka ee magaalada ka dhex shaqeeya ee dadka kura laakiin sida kuma hagar bixisidoo meeshaad rabtid degdeg uma gaadhisid laakiin se way dhaantaa hadday xilliyada qaboobaadkeed lugeyn lahayd inaad baska iska raacdid haddii aanad gaadhi haysan oo kale markaa gaarigeera halkan ii saaran ma aragtin qof kasta oo Uber-ka ku soo qaada gaarigeyga yar way jeclaadaan waxay ku leeyihiin gaarigeera halka ku dhajisatay waan ka helnay ku oranayaan so guys idinku ma ka hesheen gaarigeera sidaan halka ugu dhajiyay so marka gaarigeera waxa weeye waxa yar carruurtu ku ciyaaraan sida u sii weyn maaha marka waxa sameynaysaa hadaa rabtiin ku dhajisatay halkan oo kale super glue ba taayirada isayar ba super glue taayir xabag taayir super glue taayirada ka marnaysa kadib iron ba dul saaraysa uu ku dhigaya marka ma siibinayo soo marka sidaas sameeyo hadii gaari qurux badan aad sidoo kale rabtidna xagan aad ku dhajisatid gaarigaaga afkiisa hore soo taayirada hore oo super glue yar ka mari kadib sidaa ugu dhajiso soo qof kasta oo gaarigaaga yar soo kala u jecel waxa ka hornaya gaariga yar xagga hore ugu dhigsan waan ka helnay magaalada dib ugu noqonaa hadana tuuladeedu waxay ku xuntahay marna qofkii magaalada ka soo qaadaysa banaankayga geenaysa hadana waa inaad soo noqotid soo drive gareys soo totally shaqadan wax la isku halayn kara ma ilaahay shaqada ku dhaantahay siiyo I give up guys ma isdiibay ama waynan magaalo weyn u guuro ama waynan shaqa fiican aan raadsado daaseed labada wax ka dhaxeeya ma leh ama magaalo weyn inaan u guuro ama waa inaan shaqo wanaagsan raadsado so guys idinku taladaysiin leeyahay magaaladan ma ka guurnaa guys Soomaalidu waa reer guuraa moogti meelna ma joogaan meelna ma deganaadaan kolba meel bay u guuraan so marka reer guuraa bay nahay waan ka guurinaa mustaqbalka insha Allah magaaladan waxaan rajaynayaa in magaalooyin fiican aan u guuri doono insha Allah let's go guys waan sii duubaynaa magaaladan dib ugu noqonnaa waddadu way jajabtay sanadkan ma garanay sanadka hore sidan may ahayn laakiin hadda meel kasta god bay ku yeelatay waddada
have a good day. asxaabta uberkii baan ka shaqshaqeynayna waad arkayseen suuq fiican uu yeelan waayey haddana xaggan aan u soo cararay Walmartiga delivery baan ka qaadayaa marka muuqaalkiin waxa weeye maanta yacni shaqooyin la isku halayn karaya maaha marka haddii aad magaalo weyn degan tahay ma sheegin haddii aad magaalo weyn aad degan tahay oo ma garanaysaa uberkaygu busy yahay oo lacag fiican laga sameynayo taa ma sheegin laakiin magaalo yar haddaad degan tahay isku halayn male shaqooyinka oo uberka iyo liftiga iyo deliveryga iyo waxaas oo dhan isku halayn male soo intaan shaqo ka helayo insha Allah shaqo ayaan dhowr shaqo ayaan xareystay intaan shaqooyin fiican ka helayo shaqooyinkan waan ka sii shaqaysan doonaa sidoo kale sida uga wada tagi maayo laakiin se waxaan ka dhigan doonaa party time waxaan ka shaqayn doonaa sida sabtida iyo axad oo kale maalmaha fasaxa aan ahay oo kale maalmaha holiday oo kale maalmahaas ka shaqayn doonaa si magaranaysa idinkana aan muuqaalo idinku soo gudbiyo muhiimaddu waxa aan uga shaqaynayaan waxa weeye si aan muuqaalo aad jeceshihiin aan u soo gudbiyo laakiinse ma aha in lacag laga sameyn karayo siiba magaalada aan deganahay lacag fiican lagama sameyn karo marka hadda waxaan sugayaa Walmartigan alaab ka qaadaynaa order ayaan ka qaadanaa inkastina lacag fiican bixinaynin haddana maadaama inaan shaqo kala haysan oo aan kaga maarano tan waan isaga email gaadhina haddii la yiraahdo ducadin waa xagiina idinkuna insha Allah igu soo duceeyna shaqo fiican helo asxaabta si aan idinka markaa maalmaha kale weekend-ka ayaan fasaxahay aan shaqooyinkan muuqaal uga sameeyno si aan muuqaal uga sameeyno on meelayowga kala duwan aan tagayo aan idinku soo duubo muhiimaddu waa taas muhiimadduna waxa weeye inaan shaqo kale aan helo insha Allah soo hadda iyaga in suginaa asxaabta sii duubana markaan alaabta qaadno kadib markaa waxaan geynayaa waxaan u maleynayaa inay two stop tahay markaa waa sii wadana insha Allah let's go guys alaabta waa inuu raray markaa waan dhaqaaqinaa alaab culus weey laakiin wallah lacagta bixinayaana waxa weeye lacag fiican maaha inta dejinaysid baaba waqtiyaba let's go guys mid boolis halkan ugu hor dhuumanaya so let's go guys alaab badan baan gurayaa Oh my god. Let's go guys, alaab badan. Let's go guys, alaab badan baan guray, alaab badan. Oh. Customerkii labaad waan ku sii soconaa. Waxay ku yara fiican tahay. Shaqadan waxay ku yara fiican tahay. Yacni waxaad qabanaysaa waxyaabo yar oo culus baa qaadaysaa marmar jidhkaaga wuu fiican yahay waxyaabahaas. Let's go guys. Baabkii ku gelinaa. Okay. Sudah ya, kuat mobilnya. गाड़ी को नहीं माल अच्छी थी या
soo dhamaanay okay order kale raadsanina order kale hadaan helo it's gonna be nice let's go guys let's go guys highway baan ku soo dhacnay hadda wadadan highway-ga cabaar bay sii haysan doonaa cabaar bay sii haysanaa let's go guys dhulku markuu soo yara madmadoobaanayo malaa waa qurux baan malaynayaa dhulku markuu sidaa usoo yara madoobaanayo asxaabta baadiyi baan soo galnay waarkiisin magaaladu waan ka soo baxnay dhulkan oo dhan waxa weeye dhul beeraley weeye beero weeyaan sida darkiisiinba hareerahayga wixii barafku dul jiifo oo dhan waxa weeye beero weeyaan laakiin xilliga samarkaa la beeraa hadda waxa weeye dhulku imika biyo ka dhargaya barafkani waa biyo moogtay markaa carradu aad u nafaqo badan bay yeelanaysaa markaa hadhow toolaa la beertaa markaa hadhow beeraley bay meeshan u badantay waa arkaysiin waxaa iga horreeya oo dhan waa beero jawigna aad buu qurux badan yahay cirka cadceed baa sii yara dhacaysaa waa arkaysiin so 10 daqiiqa inoo hadhay oon sii soconayno wadadan so let's go guys we hit the road kaala baxo wadadu kugu siibato waa khatar meesha beeraha dhex galaysaa moogta marka waxaa loo baahan yahay marka laabanaysid ina sayniska calaamadaha marka hore wadadu sidii jawigeegu uu sii noqonayo iyo xaaladeedu sayniskana kuu tilmaamaya marka mar kasta waxa kuu fiican inaad indhaha ku haysid calaamadaha wadooyinka hareerahayga ku yaala si mar kasta aad u soo ogaatid xaaladda conditionka ee wadada kaa horeysa sida ay tahay haddii ay qaloocsamayso haddii ay siibanayso wax kasta calaamadahaas ayaa kuu tilmaamaya soo mar kasta gaadhiga wadid waxaa loo baahan yahay inaad sayniska wadada hareerahayga ku yaala inaad isha ku haysid mar kasta si aad u ogaatid xaaladda wadada qaybta kaa horeysa siday noqon doonto soo hadda wadada qalooc bay geli doonaa sida sayniska hore aan kusoo dhaafnay wadadu waxay samaynaysaa sidaas u qalqaloocsamaysaa marka waxaa loo baahan yahay taxadir badan baa loo baahan yahay wadaduna way siibanaysaa waa ogtiin meesha dhulka waxa ku dhegay qabowgii baa ku dhegay soo mar kastay wadadu qaloocsamayso steerinka haddaad leexisid aad u wada leexisid gaadhigu waxa weeye xagga kale uu leexsamayaa markaa in wadada kaala baxaa laga yaabaa soo waxaa loo baahan yahay marka qalooca wadada aad soo gelisid inaad magaranaysaa speedkaaga soo naaqustid kadib markaa aad soo leexatid wadada cabaar baan sii haysanaa waa baadiyan tegina waan idinku yidhi baadiye ma aragtiin wax gurya ama ku arkaysiin meeshan waa baadiye wadadan dhalaalaysa ma aragtaa way siibanaysaa soo wayn leexan doonaa soo markaa waa inaan gawaarida iga dambeeya aan u sii sheegaa inaan leexanayo bidix baan u leexanayaa markaa si ay hadhow toole isaga ka ilaaliyaan looma baahna oo markaad
halkan aad marisiin aad ku soo baraarugtay leexashada waa inaa marka hore soo qaboojisay gaadhiga gaadhigu siibinaya guys let's go saasa loo baahan yahay inaad signalkaaga mar hore u sii sheegtay gaadhiga kaa dambeeya because isna speed badan buu ku socdaa soo speedkiisa u naaquso oo magaranaysa uu isaga ka ilaaliyo marta wadada waa halkan way siibinaysaa meeshaan sii koraya hada halkan sii koraya way siibinaysaa bismillah brigi waxa isku taabanayo brigi waxa la isku taabto steeringa ku dheg steeringa la ilaha illa allah muhammad rasul la ilaha illa allah muhammad rasul wisiibinaysa wallahi steeringa ku dhigay brigi waxa aad taabatid nabad allah weeyaan nabad allah kadan wisiibinaysa halkan dul maraya xaggan ka laaban doonaa wadadan aad u khatar badan u leedahay waan qaboojiyo ayr ban laabanaya markaa wisiibinaysa meeshan let's go guys baadiyahan nimanay soo asxaabta dhulku u madoobaaday sida arkaysiinba muuqaalka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa asxaabta meel kasta adduunka daafiisa tacliintiisa ka joogtaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan waa inoo iyo muuqaalka xiga see you next time insha allah